kula wacan daawadayaal mar kale iyo barnaamijyadeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah Soomaalida oo ham yeelatay isla markaana dhiig uu soo galay qorshe ay ku qabsanayaan Garbiciis oo ay bilaabeen galbeedka gobolka City Canfartii ayaa ka barakacaysa dagaalkii ugu weynaa ee Soomaalidu markii ugu horeysay sanad kadib xasuuqooda ay qaadeen warbixino ayaan idinkaga heynaa saaxiibayaal ismaamulka ama xarada si maalinle ay ciidamo u soo saaraan ciidamo maanta tababar ay u soo xireen waxay geeyeen furmaha dagaalka warbixino ayaan idinkaga heynaa duqeymo culus oo caawa ka socdo furmaha dagaalka waqooyiga Itoobiya iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan si gaar ah u eegi doonaa saaxiibayaal sidoo kale dagaalo culus ayaa ka socda dhulka Canfarta kooxda TPLF waxay sheegtay inay qabsadeen oo ay xireen jidka Djibouti iyo Itoobiya isku xira warbixino ayaan idinkaga heynaa saaxiibayaal Ra'iisul Wadanka Itoobiya safar ayuu ku mariyaa dalal ka mid ah qaaradan Afrika wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaalida iyo barnaamijyadeedkan si gaar ah ugu eegeynaa haddaba aragtida barnaamijyadeedkan maxay kula tahay in Soomaalidu hadda ay qaadeen tallaabooyin ah in ay iska celiyaan Canfarta maxaa keenay geesinimadaas halkee ka keeneen ama halkee ayay ku qarsaneed awal maadaama hadda ay bilaabeen aragtida barnaamijyadeedkeena saaxiibadu halkaas ayay ka eegi doonaan haddii Allah uu qadaro comment ay nagu soo qori karaan muuqaalkeena like saar oo sii share saaxiibada kala gaarsii aynu ku bilowno barnaamijyadeedkeena warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal ka socdo galbeedka gobolka City iyadoo sidoo kale wararkan hadda naga soo gaaray ay sheegeen in ciidanka Somali State ay qarka u saaran yihiin in gabi ahaanba ay la wareegaan magaalada Garbiciis sida xogta aynu ku helnay Canfartii waa loo itaal sheegtay goorow ayaana waxa la baahin doonaa warbixin si guud in magaalada la wareegay Garbiciis oo ah meel gacanta ugu jirtay sanad in ka badan cadawga Canfarta oo Soomaalidu xasuuqay in ku dhow 500 oo qofna ku dilay halkaas oo haween iyo caruur badnaa laakiin hadda qorshaha ugu weyn ayaa ah in ciidamada Soomaali galbeed ay bilaabaan inay iska dhiciyaan maalmo ka hor ayay ahayd markii galbeedka gobolka City Canfartu ay ku dileen dad Soomaali ah iyada oo aan Soomaalidu awal dhiig lahayn balse hadda waxay bilaabeen iska dhicinta cadawga iyo sidoo kale inay iska qaadaan heryada Canfarta oo maalmihii ugu dambeeyay si xoog u dul saarneed iyadoo sidoo kale qorshahoodu uu yahay inay iska qabtaan wax walba haddaba maxay tahay qayaanada ay sameeyeen Canfarta waxa si adag u socoto iska caabinta iyo difaaca dhagarqabayaasha ee deegaanka Canfarta ee ka soo weeraray dhulka Soomaalida iyo sidoo kale kuwa iyaga duulaanka la ah ee garabka siinaya oo xukuumadda ay ugu horeyso Abiy Ahmed xukuumaddiisa waxa saakay bilowday in la taabsiyo dharbaxsho kulul oo qaybo ka mid ah goobihii ay maalmahan gambaadka ay ka dhiganayeen laga sii rogo ama laga saaro ilaa iminka wax khasaare ah Soomaalidu soo ma gaarin laakiin Canfartii waa laga saaray dhul ballaaran oo ay ka mid tahay galbeedka gobolka City waxaana goordhow lagu wadaa in laga saaro magaalada Garbiciis oo magaalo istiraatiiji oo Soomaali galbeed ka tirsan tiro dhowr meelood ah buu dagaaladu ka dhacay waxaana difaaca lagaga xoreeyay daalimiinta soo duulay Canfarta iyo sidoo kale daba dhilifyadooda dhanka kale video dhowr qof oo ay Canfarta ka tirsan oo ka socoto ama ku socoto iska soo duubeen gudaha magaaladan in maalintii hore ay iska dhaadhiciyeen in Garbiciis la qabtay in beenta ay rumeysteen waxaana hadda la sheegay in Garbiciis gacantooda ay ka baxayso iyada oo sidoo kale ay socdaan dadaalo lagu doonayay in magaalada looga xoreeyo Canfarta xasuuso badan ayay reebeen kooxdan Canfarta la yiraahdo qorshuhuna waxa uu ahaa in sidii khasaaraha loo yareen lahaa awooddoodana loo wiiqi lahaa ugu dambeyn si fudud gacanta loogu dhigi lahaa magaaladan run ahaantii si wanaagsan oo waliba sidii maalmihii hore aad uga xoogan bay u socotaa dadaalada iyo dagaalka ka dhanka Canfarta marba haddii sida ay rabaan Soomaalidu ay tahay in rajo weyn ay ka qabaan guusha ay gaarayaan dagaalada ka socdo waxaana hadda ay doonayaan in qorshihii ugu dambeeyay ay kaga saaraan Garbiciis ee dhulka Soomaali galbeed xoogaga Canfarta ee soo duulay Soomaalida oo aan awood badan lahayn ayaa xasuuq loo geystay sanadkii la soo dhaafay iyada oo Agost 24 ahayd sanadkii hore weeyaan 2020 markii la xasuuqay in ku dhow 500 oo Soomaali ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur sidoo kale gudaha Itoobiya ayaa dhanka Soomaali galbeed waxa loo geystay xasuuq badan iyada oo muddo sanad la gumaadayo Soomaalida laguna eedeynaya in taageero ay siiyaan xoogga Tigray Soomaalida dhanka kale TPLF ayaa ku eedeeyay mararka qaar inay taageeraan xoogga ama xarada waxaana ay dhaxda ugu jiraan laba dab iyaga oo mararka qaar dabkaasi ku gubta inkastoo TPLF aysan si gaar ah Soomaalidu u dhibaateen Canfarta ayaa ah waxaana caan ay ku tahay saameynta iyo dhibaatada Soomaalida loo geysto iyadoo sidoo kale marka laga tago Itoobiya xitaa magaalada caasimadda Djibouti Soomaali badan ku dhibaateeyay Soomaalidu hadda madaxa ay kor u qaadeen waxaana ay bilaabeen qorshe inay iska celiyaan xoogga soo duulay waxaana hadda ay qorshuhu yahay in la qabto magaalada Garbiciis oo muddo sanad ka badan gacanta ugu jirtay xoogga Canfarta
wararka Soomaalida wixii ku soo kordhay iyo dagaalada waanu eegi doonaa waqooyiga Itoobiya wararkeeda haddii aan u laabano dagaal culus ayaa ka socda goobo hoostaga deegaanka Canfarta kooxda TPLF waxay sheegteen in ay dagaalkan u fureen si ay u xiraan jidka Djibouti Itoobiya isku xira waxyaabaha dekada Djibouti ka soo taga ee la keeno gudaha magaalada caasimadda Addis Ababa ayay sheegeen in jidka ay u galayaan oo gabi ahaanba ay jari doonaan kooxda TPLF oo dagaalo xoogan kula jirta Canfarta ama Xaarada iyo xukuumadda Abiy Ahmed ayaa waxay wadaa dadaaladii ugu dambeysay iyadoo hubkeedii iyo sanadeedii military oo dhan isugu geysay dhulka ama Xaarada iyo Canfarta si ay deegaanadaasi uga saarto xoogaga ciidanka dowladda iyo kuwa taageerada u ah haddii la qabsado goobtan hadda dagaaladu ay ka socdaan waxaa xirmi doona wadada weyn ee isku xirta Djibouti Itoobiya waayahay ay dhanka ama Xaarada dagaalo ayaa socdo waxaana dagaaladaas ay u dhaxeeyaan xoogaga ama Xaarada oo garab ka helaya kuwa militariga ee dowladda waxaana ay la dagaalamayaan kooxda TPLF wararka ayaa sheegaya in dagaalada socdo ay tahay dagaaladii ugu adkaa in muddo 6 maalin dagaal xiriir u socdo ay tahay wax weyn oo Itoobiya iska bedelay maadaama aanu nabad la helin war hadda hordhacna soo gaaray ayaa sheegaya in dagaalada ka socda waqooyiga ay hadda sii tarayaan isla markaana furmaha dagaalku ay badanayaan iyada oo sidoo kale dagaalo culus ay ka socdaan magaalada Tesi oo laga baqdin qabin saacadaha soo aadan gacanta TPLF gasho ismaamulka ama Xaarada ayaa ciidamo maanta ay tababar u soo xireen waxay geeyeen furmaha dagaalka iyadoo sidoo kale ay u qaybiyeen saanad military waxaana la sheegay in xoogagan ciidamadan loo geeyay si ay u difaacaan Tigreega ku soo duulay dhulka ama Xaarada ciidamadan faraha badan ee xabashidu ay tababareen ama Xaarada ayaan la ogeyn guulaha ay keenaan markastana waxa la geeyaa furmaha dagaalka iyada oo jab iyo niyad jab ay kala soo kulmaan iyada oo sidoo kale aan la ogeyn waxa ay sameyn karaan sidoo kale xuduudda ay wadaagaan deegaanada Oromada iyo sidoo kale ama Xaarada ayaa la soo warinaya in dhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan dibadda xoreynta Oromiya waxaana OLF iyo TPLF ay wadaan qorshe ay si wada jira ugu midoobayaan dagaalada ka dhana xukuumadda haddii la qabsado magaalada Tesi waxa isku furmi doona dhulka Oromada iyo sidoo kale kooxda TPLF iyadoo ama Xaara gabi ahaanba laga sifeyn doono dhulkaas oo dhan haddii saas ay dhacdana waxa dhici doonta in guud ahaanba laga adkaado kooxda ama Xaarada lagana sifeeyo dhulka ay ku sugan yihiin ee ay kaga sugan yihiin magaalada Tesi iyo magaalooyinka kale magaalooyin ay kamid tahay Kaashan iyo sidoo kale magaalooyin kale ayaa kal hore lagala wareegay ciidamada ama Xaarada iyo kuwa militariga dagaal maalintii 6aad gobolka u dhacayana ka socda gudaha Itoobiya iyadoo aan la ogeyn sida dagaalkaasi uu ku soo istaagi doono ama lagu istaajin doono dhanka kale haddii aynu eegno iyadoo xaaladaas ay ka jirto Itoobiya ayaa ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Abiy Ahmed waxa uu bilaabay inuu booqasho ku tago dalal ay kamid tahay Uganda iyo Rwanda safarkiisii ugu horeeyay maanta ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya waxa uu ku tagay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda halkaas oo uu kulan kula qaatay madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni labadan mas'uul ayaa ka wada hadlay xal u helidda xaaladda Itoobiya iyagoo is weydaarsaday qorshaha labadan aqoon ee labadan dowladood ee ka dhanka ah TPLF Abiy Ahmed ayaa sidoo kale markii uu ka soo tagay Uganda waxa uu safar ku tagay magaalada caasimadda ee Rwanda halkaas oo lagu soo dhaweeyay magaalada Kigali ee caasimadda Rwanda ayaa waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha wadankaas waxaana loo galbiyay xarunta madaxtooyada mas'uuliyiinta oo la kulmay maanta ayuu inta badan garab ka dalbaday waxaana uu u baahan yahay Abiy Ahmed in garab laga siiyo xaaladda Itoobiya waxaana hadda uu wajahaya xaalado kale toddobaadkii hore bilowgiisii ayay ahayd markii safar uu ku tagay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga halkaas oo kulan kula yeeshay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Abiy ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee Itoobiya waxaana Erdogan uu u ballan qaaday Abiy Ahmed inuu soo gabagabeyn doono xaaladda Itoobiya isla markaana uu ku dhameyn doono wada hadal haddii ay suuragal weysan oo ku taageeri doono hub iyo saanad military arintaas ayaana niyad jab ku noqon karta haddii la waayo wada hadal kooxda TPLF inkastoo Mareykanka iyo dalal kale ay ka gaabsadeen xaaladda guud ee wadanka Itoobiya haddana dalal uu ka mid yahay wadanka la yiraahdo Turkiga ayaa waxay diyaar u yihiin iyo kuwa Carbeed inay xaliyaan xaalka guud Faransiiska iyo Mareykanka iyo dalal kale ayaa si wada jir uga soo horjeeda in xaalka guud ee Itoobiya lagu xaliyo qori caradiis loona baahan yahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado si xal waara looga gaaro xaaladda guud ee Itoobiya laakiin lama oga waxyaabaha uu weydiisan doono dalalkan hadda uu maanta tagay waa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Uganda iyo Rwanda ayuu weydiisan doonaa taageero dhaqaale iyo hub iyada oo sidoo kale weydiisan doono ciidamo inkastoo aysan u suuragali doonin xaalka guud ee Itoobiya ayaan la ogeyn sida ay noqon doonto waxaana safarada Abiy Ahmed ay ku soo aadaysaa iyada oo dagaalo culus ay ka socdaan 3 qaybood oo kamid ah dalkaasi Itoobiya oo deegaanada Oromada ama Xaarada iyo Canfarta
deegaanada Amxaarada oo kaliya 4 furmood ayaa ka furan halka Canfarta dhowr jiho dagaalo ay ka socdaan. Oromadana si la mid ah, xukuumadda Abiy Ahmed ayaa wajahaysa dagaalkii ugu adkaa ebed iyada oo ay ku adag tahay hadda inay ku sii maamusho awood waddanka Itoobiya iyo xaaladdiisa